سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada walaalayaal koorsada HTML on maanta qaadan doona casharkii 14aad si taxanaan aan uga siitayna kanaalkan. casharkeenan 14aad waxa uu ku saabsanaan doonaa habka ama waxanaanka aad sawir u soo gelin karto page-kaaga HTML-ka. si hadaba aan page-ka u soo gelino sawir, shuruudo ayaa laynooga baahan yahay. shuruudahaasina waxay yihiin to insert your page image, it is important issue. horta marka hore inaad soo geliso sawir page-kaaga HTML-ka waa arrin aad u muhiim ah. sababta ay tahay waayo website-yadu kama maarmaan sawir la'aanna website-ku ma noqonayo website qurux badan sidoo kale soo jiidasho leh. sababtaas ayuu ku noqday sawirka in la soo geliyo page-ka arrin aad u muhiim ah. wuxuu yiri before you using image tag you have to remember inta aan isticmaalin tag loo yaqaan image tag waa inaad xasuusnaataa labo. you have to know the location of your image, in aad taqaano halka uu computerkaaga ka yaalo sawirku. markaan leenahay location, sawirka laba jeer ayaad soo gelin kartaa page-ka, maraad location u baahan tahay iyo maraad magaco kaliya qorayso. marka aad magaco kaliya qoraysa waxa weeye marka sawirka iyo file-ka HTML-ku ay isku meel yaalaan, marka magaco kaliya ayaa lagaaga baahan yahay. marka aad location-ka qoraysana waxa weeye imika ka soo qaad file-ka HTML-ku wuxuu yaalaa desktop-ka, sawirkana wuxuu yaalaa document-iga. xaaladda noocaas ah ay kala meesha yaalaan, sawirka waxa loo baahan yahay in la helo location-kiisa haddii aanad qorin sawirkaasi ma soo baxayo. labada habba waynu arki doonaa inta aynan u gudbin. haddana waxa kaloo ay tahay inaad ogaato in image-ka aad soo geliso page-ka aad bedeli karto height-kiisa iyo width-kiisa. page-ka markaad sawirka soo geliso isagoo weyn ayuu soo gelayaa oo dhammaan page-kii wada qabsanaya. markaana uu soo galo sawirku isagoo weyn waxaad xadidi kartaa height-kiisa iyo width-kiisa oo inta aad rabto oo kaliya aad siin karto. waxaan filayaa intaa waynu isla fahanay. si aynu u sameeyno waxaynu aadaynaa page-kii HTML-ka. page-keennii hore aynu soo samaysanay mid ku samaysan doonaa kanoo ahaa kii ugu dambeeyay aynu sameynay forms-ka ayaynu halkiisan dambe ayaynu ka soo gashanaynaa. ka waxaynu furaynaa tag loo yaqaano image si aanu inooga dhaxgelin forms-ka. waxaynu tagaynaa halka baynu br ka sameynaynaa break row, kadib hoos baan u degayaa halkan waxaan leeyahay image. markaynu image qorno waxaynu leenahay crc equal labada quotation baynu furaynaa. waxaynu qoraynaa image-ka aynu halkan soo gelinayno magaciisa. haddaba image-ka aynu soo gelinayno waxaynu ugu horreysiinaynaa kan ay isku location-ka yaalaan file-ka HTML-ka iyo sawirku. sawirku wuxuu yaalaa halkan desktop-ka, sidoo kale file-ka HTML-kana waa kan waa table. sawirka aan soo gelin doonaana wuxuu noqon doonaa dalxiis. waayahay page-kii baan dib ugu laabanayaa. halkan waxaan ku qorayaa dalxiis. okay, dalxiis markaan qoro waxa laga baahan yahay ee kale waxay tahay inaan sawirka format-kiisa inaan raaciyo. sidaan u ogaan karayaa marka sawirka format-kiisa? waxaan tagayaa oo aan ku noqonayaa halkii sawirku yaalay. sawirkan dul tagayaa right click baan leeyahay. halkan ayaa waxaan ka sii dooranayaa property-ga. markaan aado waxa soo baxaya horta marka hore sawirka magaciisa waa dalxiis. sida oo kale nooca ama format-ka sawirkuna waxa weeye jpg. marka page-keeni baan ku laabanaynaa. waxaan leenahay .jpg markaan nidhi control s baynu leenahay. waynu soo kicinaynaa Chrome-kaynu soo kicinaynaa. waa kan sawirkii isagoo aad u ballaaran buu soo galay. waad u jeedaan ilaa intuu qabsaday page-kii wax yar baa uu ka tagay inta hore
formiska. marka sawirkan baaxadda leh waxaynu yareynaynaa height-kiisa oo ah jooga, sidoo kale width-ka aynu yareynaynaa oo ah jiifka. waayahay inta aanan height-ka iyo width-ka u gudbin, waxa sidoo kale jira tag la yiraahdo alter wuxuu faa'iideeyaa inuu fahansiiyo Google-ka sawirkani waxa uu ka hadlayo. marka waxaan leeyahay alter markaan yiraahdo equal labada quotation baan furaya. marka sawirku muxuu ka hadlayaa? waan leenahay dalxiis buu ka hadlayaa, dalxiis. okay inta markaan qoro xagga hore ayaan yara baxaya, waxaan leeyahay height equal labada calaamadood baan furayaa kale. halka marka waxaan ku qorayaa height-ka sawirku yeelanayo. waxaan leenahay 400 oo px ha yeesho, 400 oo pixel ha yeesho. okay waan ka baxayaa, halkaas baan hadana ku qorayaa width equal labada calaamadood baan furayaa. halka dhexe waxaan gelinayaa width-kana inta aan siinay. marka halkan 700 baan iska leeyahay, 700 oo px pixel. control s waxaynu ku laabanaynaa browser-kii oo waynu refresh gareynaynaa. waka sawirkii height-kiisii iyo width-kiisii ba waynu yareynay. adiga ikhtiyaar kale oo intana ka sii yareyn kara ama ka weynaysiin kara. waayahay waxaynu hadda aragnay sida loo soo geliyo sawir file html la yaala. waxa kale oo aynu soo gelinaynaa sawir kale oo aanay file-ka html-ka isku meel oo loo baahan yahay location-ka. waayahay hoos baan u tegayaa, halkan baan tag-gii ka furayaa img crc equal labada calaamadood baynu furaynaa. markaynu labada calaamadood furno waxaan iska sii qoranaynaa alter, kuma dhex qorayno labada calaamadood dhexdooda. sawirkii baynu soo gelin doonaa alter intii Google-ka la fahansiinayo weeyaan intani. waxaan leenahay sawirka muxuu ka hadlayaa? diyaarad duuleysa. waa diyaarad duuleysa sawirka aynu soo gelin doonaa. waayahay markaynu intaa qorno halka dhexe waxaynu gelinaynaa sawirka magaciisa, location-kiisa iyo format-kiisa. file-ka html-kana desktop-ka ayuu noo yaalay. halkan baynu hoos u degaynaa. waa ka sawirka aan rabo inaan soo geliyaa. daba si aan u helo location-kiisa right click baan dhahayaa. halkan baan ka sii dooranayaa property. halka waxa ku qoran location. marka maxaan sameynayaa inaan gebi ahaanba inta aan highlight gareeyo, kadibna aan soo copy gareysto control c. waxaan keenayaa halkaas calaamadahaasi ka furan yihiin bartamahoodan keenay control v markaan idhi intaas oo kaliya kuma eka, waxa haray magacii iyo format-kii. waxaan sameynayaa slash baan qorayaa. markaan slash qoro waxaan soo eegayaa magacii sawirku uu lahaa. haddii magaca sawirku uu dheer yahay waad soo copy gareysan kartaa isna. markaan soo copy gareystay magaciina halkan baan ku sii deynayaa control v. waxaan raacinayaa format-ka sawirkan uu leeyahay. haddii png yahayna png baan ku qori, haddii uu jpg yahayna jpg baan ka dhigi. waayahay isagana sidaan u ogaanayaa? simply halkii aynu location-ka ka tagnay waynu tegaynaa. waxaynu eegaynaa halkan waa jpg. control c isagana haddaad doonto waad soo copy gareysan kartaa ama waad qori kartaa. okay halkan waxaan ka dhigayaa diyaarad Soomaha .gbg. control s waxaynu sameynaynaa intaynaan soo kicin img-ga halka ka furan ayaynaan halkan ka soo xidhin taggiisii img. okay tagga waynu xidhnay. waxa kaloo aynu sameynaynaa breaking row inaynu sameyno br control s. okay browser-kii baynu ku laabanaynaa oo refresh gareynaynaa. waa kan sawirkii halkan hoose ayuu noo soo galay. sawirkii hore waxoogaa ayuu ka weyn yahay, isagana height-kiisa iyo width-kiisaba waynu yareynaynaa. sidii si lamid ah waxaynu sameynaynaa inaynu halkan soo gashano height-kii iyo width-kii. intan laftarkeedaba waynu soo copy gareysan karnaa. control c
halkan calaamadaha kuma dhex qorayna, calaamadaha waan ka dhex baxaynaa. Control V markaan nidhaahno ka hore size-kiisa waynu ka yaraynaa, halkan 200 baynu ka dhigaynaa height-ka, width-kana waxaynu ka dhigaynaa 300. Control S, page-ka ayaan dib ugu laabanaynaa, aan refresh garayno. waa kan sawirkii isagoo yar ayuu halkan soo galay, height-kiisa iyo width-kiisa oo aynu yaraynay dartii ayuu intan u leekaaday. waxaan filayaa casharka inaad fahanteen. casharkeenu guud ahaan waxa uu ku saabsanaa inta aynu hadda soo wada aragnay, aynu soo sameynay. marka aad sawir soo gelinayso HTML inaad taqaano location-ka sawirkaagu yaallo, sida oo kale inaad taqaano format-ka uu sawirkaasi wato, haddii PNG yahayna inaad PNG ka dhigto, haddii uu JPG yahayna inaad JPG ka dhigto. waxaan rajeynayaa inuu yahay cashar fudud oo aad samayn karaysaan. wixii su'aal aad qabtaana waxaad ku soo gudbin kartaan qaybta commentiga ee videoga. intaas ayuu casharkeenu ku eeg yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.